بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى عليه، وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من لم يصلي عليه. إخوتي الكرام، waxaan mar kale caawa aan ku sugannahay masjid Madiina Bulxuwey. waxaan habeen hore ila alla mahadiisii si nabada noogu dhamaaday xalay. aan ula jeedaa qaybtii koowaad muxaadaradii aan u balansanayn oo ahayd usuul albuyuuc almuxarama. waxaan filayaa dad badan inay ka faa'iideysteen intii soo xaadirtay iyo intii kala socotay social media, maadaama page-ka masjidka live ugu baxayay. caawana waxaan u ballansannahay mar kale in muxaadaradii qaybteedii labaad oo halkan uu noogu soo jeediyo الشيخ الدكتور عبد النور فارح علي. marka waxaan filayaa in rag iyo dumar xaafadu ay u diyaarsan tahay, inta nagala socoto habadana ay ayaguna insha Allah ay ka faa'iideysan doonaan. albuyuuc almuxarama qaybteedii koowaad sheekha xalay uu wax badan kaga soo hadlay, suwarteedina uu ka hadlay. caawana insha Allah waxaan rajaynaynaa inta harsan iyo intuu sheekha noogu dari karo, maadaama maalmahan buyuucda ay gelayso majaalaad ama suwar oo mucaasar ah, in insha Allah sheekha aan ka wada faa'iideysano. waxaa xusuusin mudan jamaacadu qaar su'aalo ay qabaan oo xalay ay leeyihiin su'aalaan rabnaa sheekha inaan weydiino. su'aalahan hadee laba u kala qaadaynaa. waxaa la yiraahdaa minhaaj lama horkaca la dhahaa. wixii sheekha oo uu hore uga soo hadlay oo ku jirtay insha Allah muxaadaradii hore waan ka tegaynaa. allahumma wixii xoogaa yar iskaaliye ah inuu istifsaar ku sameeyo waa weydiinaynaa. wixii caawa baxayna kadalika sidoo kale. intaa wixii ka soo haro oo sheekha uusan carab dhabin ama uu looga baahdo istifsaar kale, insha Allah ayadoo qoraal ah naloo soo gudbiyo, annaga tafatirayno fiirinayno. kadib sheekhana insha Allah waqti aan ka codsanayna inuu na siiyo markuu dhameysto daqiiqadihii uu ugu soo talagalay muxaadarada inta ka harsan inuu na deeqsiiyo. runtii baaraka Allahu fi juhdihi, Allah barakeeyo juhdigiisii iyo cimrigiisii iyo camalkiisii. masjidkana runtii waa jamaacada aadan ugu mahad celinaynaa soo dhaweynta ay soo dhaweeyeen iyo siday u soo camireen. marka insha Allah aan ajir suubsano, muxaadarada aan ka wada faa'iideysano. markaana waxaan mikrafoon ku wareejinayaa Dr. Sheikh Abdul Noor Faarax Ali. sheekh soo dhawow mar kale. insha Allah. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شكرا دكتورك يا علماء أدبانكم هذا علينا، جزاكم الله خير. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن توصل لي إن شاء الله تعالى محاضرة أن قيبتي اللباد أصول البيوع الممنوعة. قيبتي اللباد marka aad mucaamalaadka iyo beeca iyo ahkaantiisa agaratid waa meelaha aad uga muuqanayso oo qofku ka arkayo, ka dareemayo, ka fahmayo waa sicnimada shariicada islaamka ah. waa sicnimada shariicada islaamka ah. shariicada islaamku waa diin dhammaystiran. rabbi subxaanahu wa tacaala uu u soo dejiyey in ay nidaamiso dadka noloshooda oo dhan. waa nidaam nololeed annaga iyo rabbi xiriirka naga dhexeeya, annaga dhexdeenna xiriirka naga ka dhexeeya iyo nafteenna, bulshada xiriirka ka dhexeeya, ama ha noqoto ganacsiga iyo beeca iyo ahkaamtooda, guurka iyo qoyska iyo tarbiyada carruurta iyo xuquuqda, ha noqoto jinaayaadka iyo xadgudub hadduu yimaado iyo garsoorkii sidii lagu xallin lahaa, ha noqoto dhammaan shareecada islaamku waa noo faahfaahisay. xataa qofku markuu dhinta kadib sida asaga loo maamulayo iyo sida xoolihiisa loo maamulayo. marka waa shariico dhammaystiran. dunida xilli walba iyo goob walba la joogana Allah subxaanahu wa tacaala u soo dejiyey
in lagu maamulo ayna wanaajiso waxaan soo sheegnay asalka beec inuu xalaal yahay xalaalnimadana uu uga baxo marka koowaad shayga laga ganacsanaya inuu daata ahaantiisa xaraam u yahay almuharram lidaatihi qaybta labaadna ay tahay almuharram likasbihi ama shayga laga shaqaysanayo ama waxa laga ganacsanayo inay xalaal yihiin laakiin qaabka looga ganacsaday ee xaraam ka dhigayso qaybtii koowaad oo ribada ahayd ayaan ka hadalnay al-aslu al-awwal الربا يحصل لي أصل كلابات ونعاود درسك كبلابيننا والنوع اللي يرادو الغرر وغين يلا برا غرر ك علوم ماذا مركز راعد هذا الدبق الشد الجهالة هي الغرر هي جرة جهالة ده وحلا يرادا أقون الآن وحا قدنا يسو إن هذا الحكة هينين ama lacagta aad qaadanayso inaad xog ka haynin ama maxaan ku yiraahdaa aysan ku dhameystirnayn xogtii loo baahnaa مثلا gaari inaad gadatid ku yiraahdaa gaari aan leeyahay oo baradhahan ka gadaya anigu waa safraya lacag intaas si waayaha iska tiraahay adigoon ogeyn modelkiisa conditionkiisa iyo xaaladiisa goorta uu soo baxay ma gaari burburayba mise waa gaari dhaqaalaysan aqoon la'aan baa la yiraahdaa al-jahala wa adamu al-ilm وحاجر الغرر علماء قاركود عدم العلم جاس لفتي سأيه كفسران وحاكل أجرا هو بنتلان شيء إلا هلي دونا إن كلام مركان لأغين تصالح هان جارك أو كاج ضيو أدقوا تقانا حال حافظ كتكتو أديك بكحيي لكن مركو كاس والله بتيبه تو كقارت أما برعة كقارت جارك ولا لما قين ولا دعي المغصوب شيء لا دعي ولا لا تجي واي شيء قال لقيت تجي لا تجي وإلا هلي دونا إن كالآن لأغين إلا قضاء الغرر هي اللي هذا السجنة العلماء قارنوا حين هذان لبضا معنبا وسوهس قليايو ما كان مستور العاقبة وشيء عربتي سأل لأغين إن لهلي دونا لما أغا أما نوعي سعيان لأقون معناها وقاري لحظي تصال أهان وأتلمامه ستقاني إيوه قاري عن لحظين وقولي دحيا لكن أدوه آذان أرق سوء أجيها آذان أقونين إنه بربرسيها إنه عسبيها إنه آذان أقونين والله بالشيء بكليه سوما لبدو بغرر كأيسوهس قليان لك غرر كأيسوهس قليان الغرر كالنبي صلى الله عليه وسلم والربي حديث مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر النبي صلى الله عليه وسلم وحور بيع الحصات دغخ اما دغخ تورديسا بيع لو كلا غتو دور معنى لو فسرايا waxa kamid ah la yiraahdaa dhul inta lagu dhex istaajiyo goof kan dhex istaag dhagaxan tuur ilaa meesha uu ku dhaco yaa lacag intaas kaaga gada macna lacagta horay baa looga heshiinaya inta dhagaxa tuurin kadib ka hor yaa laga heshiinaya haddii tuur meesha ku dhacan ka gadaya marka kadibna beeca iyo lacagta iyo laga heshiinayo qarar hada meesha ma soo galaya laakiin lacagtu waaba waajibtayba intaasan ka gaday dhagaxa haddii uu 10 mitir ku dhaco iyo hadduu 100 ku dhaco nasiibka waa xaraam waaye ama dukaanka inta dhexaystay ama bacadlaha ama huudayda dhagax xagga ka soo tuur maradu ku dhaco yaan intaas kaaga gaday qiimihii hore loo gooyo midkii uu noqdaba nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu kala reebay عن بيع الغرر شيء عن عربتي سلا أقونين أما مجهول كلاجي هاي أما إن لهلي إن كلا أن لأغين بيع عيسى النبي الربي صلى الله عليه وسلم إمام النووي شرح مسلم صحيح مسلم كبرك وشرحي وحليه وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع بيع الغرر وأصل وين أو كمدة أصوشة تيرك وين وكل شيء كتاب البيع إن لبرت غررك هي معنيه هي أحكام تيسا محان سوق قليا هي محان سوق قليا ولهذا قدمه مسلم برسالة درتين أي إمام مسلم السهر مريء حديث كأسقاه كدمنا وحكاها الإمام النووي رحمه الله تعالى قيبه iyo hadduu yaraado iyo hadduu bato u tagi doonaa marka taas qaybintaas
غررك وحا الله ريبي مركا كواد ظلمي أيا كجرة أكل لأموال الناس بالباطل أيا كجرة أو وحال الربا لبض الشيء أو لك لقدنا أيو أنا أما هنقضى شيء بمبيع أو لقدنا أيو أما اللعقت بهنقضى معلوم إنيهن علما ينافي عنه الجهالة معناها لبض الشيء قف والبوحة وقادنا ينا وإنه يقان وحا وبحين ينا وإنه يقان لكن كل نصيب سهدين نقطه نوعي قمارك أي نقنيسا ماشي لقوا حقوق عن أنت كاسي قمارك يوكله أي نقنيسا قمارك أنا قاعدة يسوع حواي هدا أدوق فساد هدا أدوق فائدنا أنا خسارة هدا أدوق خسارتنا أنا فائدة سيدا كله البيع يجنع سج ينلش المسلمين تنا وحال الربا أخوة دودا ولا اللي دودا استجعيل كودا إلا إلى عليه حوالي إن يسكون كلا إمام بعد الربا حكمة الله بعده حواي أنه يؤدي إلى التنازع والعداوة والبغضاء حكينا يا مرن يا الضاد يا سنعيب يا الدجال قاربا كاقتي برادها أنوتي لعق أنت أصلا كور أنت بعد قصيص بالريق قاري مركز على ركتي باتر وذاتك إن السرعات بيقول كان قاري ما منا قاضنا لعقتنا ولا كلا قاتي وكو أديكتني كان أوسكي مثالك هذا وكلا رجع تور واتورتي ماله كل علمي يقان إيه تصالياش الصوص عضو عن كشاكين دونودن مركا وحول با أو كينايا لبدا قف أو وحكلا قدرتي إني دقالمان مرمان دودان خضاقي يرالي هانشي عقود اللي حري لوايو حرام بين قنيا عقود لنا وحال لو حري الرضا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم أن رضاقي هدي لوايو يرالي هانشي بيعي ما أنصحايو ومرن وماشي سوقله أن غررك بيع السامين يا سيد الإمام النووي رحمه الله تعالى وصحيح مسلم ككل شرحي شروط بوليه هي شروط دي سوى حاكمة أما الشرط كواد أو إنكستو وسنتوس وتلمام الإمام النووي غرر كوا إنه يهي معاوضات وإنه قال يوحي لمتك معاوضات محل قوضات وجناع سجى وحل إسكوب بدلنا مركان وحكوسين وحنا أن كان بدلنا غرر لما أقلا شيء وإنه لما يستريه لكن علماء وحيسوا خلافان تبرعاتك قفك هدية باسينيسا أما محانكو إلى هذا صدقة سينيسا أما حق السلامة الريبيسا قارقيق حق السلامة الريبا وقادانكو إلي هذا هداد أركتد هذا ما يديه كرتاني وقارحهم بعد حق السلامة يقول ريبت وحان كاقب بد الشيء ماله مركاس وحدي بملاهن وحلقاقب بد الشيء ملاهن غررك وإنه يهي كثير دين عاصمرك لقى إيجو غررك وحالله قيبيا صدح الكثير مد بدن أو عقدي بريناية أو بيعي حاران كدقاية وأنا مدك كينيا ضد يا مرنك وأنا مدك كينيسا جناح صديه إنه سرالي كنا قن وحي ولعتك بحي مروا البنا عرفك أي الله لا لا بنا يا تصالياشي سنة وأتجدنا وحاكم ده ميرا إن لقضوا أن ولي بالسلام حديث ثقار أي قصة أرورين الغرر يصير متكيركة أسقوا بنايه يرانت محل هذا ما لا يكاد يخلع منه عقد متك عقد والبك حجرة أما عقود أنت هذا بدن كل حجرته إمام النووي مثال لي قريبات قدنا يسا أساس كيس يشبك أولك كجرين ماذا أرك مركي للشبع ماذا جوجين وحد عكرت إنسفي عن الله شوي وحكى له عكرته من أن قال له قد تحدرين صبا لكن مو قال كيس أكره أياد أركيسا وحكى له كمده قري إنا كريسة بشي مركا ولي هجري جاء إنا يصدق كل ما تنوى لغيابا إنا لباتني السقال كل ما تنوى لغيابا مالين فرق ياها صابحي كرتصوما اللي يصير بيرادان كوا يركع نبات ملها المرك يصير أي يرادان مرك عقدي مبورينا يو متكاس السقاء المتوسط متك دحدحات كا علماء قارو حيرادان وحو دحجليا بدنانتا قارني يرانتا أي الراعيان مر والبنا دحدحات كلنا عو بدنيا أي الراعية
أيانا الضبط جيسا ليسوا خلافه لكن أصل كوحوي أما قاعدة وحوي وحيابها قفك جناع صداها أما قفك كاستمرك أما عميلك مركا وكاجتو سيد عادي وكل رال النقد يصير ويا لليه دبعت ملها بيعنا ودعيا هدي وسن كل رال النقد أمرا دبعت كإيمان السنة لما أقلنا مركا عرفك أيا الله يا الله من أيا لحاد كان مر والبدين عو بدين هي أيا الراعين أيا إن شرط الصدحات وحواي غرر كليه كان كواد محوها معاوضات كوائن قله لبنا محيهين أن يكون كثيرا وإنه بدنيه أما بدنا نتحقه صدح وحواي أن يكون في المعقود عليه أصالة وإنه أصليه أو مقصوديه وإنه مقصوديه محل قوضا هدوسا مقصودها والله يسكدافايا تصالى أهان النبي صلى الله عليه وسلم بيع المضامين والمراقيح أيو الريابي معناها حولها نيف من علوشيس المها كجرا والا الريابي معناها سعر من وحا دالي دونا لما قدن كرا waa حرام waa لكن maxaa banaan sacri man ina gadatid baa banaan lacagta sacri man iyo sac kale caadiga ah ma isku qiimay noqonayaan waa maya soma waa maya waa laakiin maxaa laga eegay mid kaanu berri buu laba noqon doonaa dhali doonaa baad adiga kugu jirta sidaa darteed lacagta xoogaa baad ku daraysaa qararka noocaas oo kale waa la saamaxaa waa la dhaafaa sababkuna waxa weeye maqsuudka beecu ku dhacayo oo caqdigu ku dhacayo oo shayga la kala gadanayo waa maxay waa saca soma saca weeye waxa la kala gadanayo waxaa kaloo ka mid ah waxaan soo sheegnay miraha aan bislaan lama gadi karo soma oo ceerinka ah oo hadda soo baxay oon adkaanin lama gadi karo laakiin beer baa gadanaysa beertana waxaa ku yaal geedaha qaar oo miro bixinaya mirahoodina aysan weli bislaanin dhibaato ma lahan limaada maqsuudka iyo hadafka beecu wuxuu ku dhacay beertuu ku dhacay iyo geedaha ee miruhu maqsuudkii ma ahan ama asalkii ma ahan marka tawaabicda waxyaaba ah yuqtafaru fi tawaabic maa laa yuqtafaru fi lusuul waxyaabaha shayga raacraaca oo la socda asalkii loo socday waxyaaba aan la dhaafin ayaa la dhaafaa waxaa kale oo afar ku ah ألا تدعو الحاجة المعتبرة شرعا إلى العقد حاجة إيا باهي وإن سنكينين باهي قفكو هدي وقلي وايو ودباتونيو وإن سنكينين بيع الغرر كان أما قف كان معاملة غرر كان قاله لكن هدي حاجة أي كانتو ولا قلي كراه تصالة وحاكم ذا ودمدا قار وددك كو خصبهية عيمس إني قلان عيمس كاسنا وجنعسي هي تأمين تجاري إنه قلان عيمس جنعسي بالول بين العقد بحسب هداد حنوستنا اسبتال هبل تفتن أو قوة دولته بحيانا أنا هنا قوة جنعسي أو بعشرة دا سيدا كلا بابور كجاري كاج إنه تجلس عيمس جنعسي بالول بين العقد بحسب أدوين هذا أبا هنين بالغي يابا شرعي أهان تأمين تجاري أما عيمس كجنعسي هي مبنانا لكن هدي باهي أي كنتو أو هذا النولان كرين أو لغو خصبه وقالي كرتاعي الليهن علماء قضب كالشناد أو غرر كانوا بهاللينا وحاوية ميلها وقالي كرا وحاكم ذا غرر كوحو قلا صيغة العقد صيغة العقد قوامحي لبدا قف مركي وحكا لقدانيان هذا الكي إسلاف سنيان أما قرال كي إسلاف سنيان أما هشيس كدعيا وإنو قوانيا هي وحلا يقان كلا قتان كلا تقان كلا دقاقان أما بدأ عدل كلا قدنا يهنقضو أما العقد هنقضو لبدو وإن سيقضو وإن عدها سيقضيو أن قعنين هدي لك كلا تقو وحاسوق لي ماشي جهل أيا سوق لي جهل كاسنا هدو أما جهالة أيا سوق لي جهالة داس يغرر كاسنا أما العقد بي الله من دونتا أما بدأ عدي بي الله من دونتا تصالح هدان سوق قادنا وسوق كوبي نعاوي تصالح هدان سوق قادنا شيء بكا قاتي وف معميل كوه
وكاقاتي أديك سؤال أهان دكان جملات هاي طبعا كينتالو سنكر وكاقات كينتال كواك عيال لباتن بان كو دفنا يا أبو باتن دين بان كوسي سوا قرنيسا ما يمي يلي يكوري سديد يتوبك أن كو قادن جيران كوسينا يا أدين كومر ما هي غاري دقائق وانا كلا تكتين نينكا maxaa isku leedahay arinta xaraam way shariicada islaamkuna ma ogola wax la yaqaan in la kala gataal raba hadii kala bari maxaa imaanaysa odayaal ha loo yeero culumaha loo yeero ganacsato kale ha loo yeero $2 baa noo dhaxaysay hadhow inay bahashi badataa laga yaaba ama ha yaraato ama ha badnaatee wixii in la gooyo ayaa la rabaa oo qarar uusan siiqadii gelin iijaabka iyo qabuulku in wax la yaqaan ay ku kala tagaan qararku mararka qaar wuxuu ku dhici karaa daatada shayga la kala gadanayo tusaale ahaan goof baa la cabiray dhulal baa laga dhigay waxaa tiri goofkii hebel boosas baa laga dhigay 200 boos buu noqday booskiina waxaa la gadayaa lacag intaas $5,000 $100,000 intay rabta ha noqoto $200 ictibaar macnaha qiimaha lacagtu saamayn mayso laakiin waxaa la rabaa in la cayimo haddii khariido lagu gadahayo booskii oon qofka la korgeynayn waa in la tuso oo la yidhaahdo naqshadda halkaasaad ku leedahay booskaa lambar 66 baad leedahay liannahu boosaska qaar baa laba jidla ah qaar baa suuqii u dhow qaar baa dukaamada u dhow qaar baa dhul simanoo fiican ku yaal qaarna togog bay ku yaallaan oo maxaan ku idhaahdaa dhiiqay lugaha kuu gelinayaan haddaad degto marka waa inaad la cayimo waayo أجل وقت هذه لقبته وقتي وين سجنا العيمة عدم القدرة على التسليم أيها كمدة قف كإن هذا الشيء يكون جنكرين هل كان كإيمان يسا سال أهم وحيد هذا كلون كبدة كجرا لما كلا جدًا كرا شمبر الدولة لما جدًا كرا جاري لقى دعي لما جدًا كرا دول حوج لقى هيست لما جدًا كرا جاري حوج لقى هيست لما جدًا كرا حتى هديل ربه اللوجير hortiina hadduu yaalla xataa lama gadi karo laba qolo ayaa laga soo reebaa laba qof baa laga gadi karaa bay yidhahdaan culummadu maqsuub markuu yahay shaygu xoog lagu haysto horta aan ku laabta badda oo kalluunka biyaha ku jira macnaha barkadaha iyo meelaha xiran maaha waxa laga hadlayo waa baddaas kalluunka intuu dabaasho meelu doono uu aadayo laakiin hadduu maxsuur iyo meel xiran ku jira waa la gadan karaa almaqsuub waxaa laga gadi karaa qofka gacanta ku haya ilaa qabdi baa la raba soo maaha inaad qofka aad ka gadayso ku wareejiso asagii baaba hayaba ka gado hadduu hadda kuu xoog sheegto oo lacag aadan qofka caadiga uga gadi lahayn uu kaa siisto markaas macno kale ayay yeelanaysaa iyo bayculmudar iyo meelo kale gelaysaa waxaa kaloo laga gadi karaa baa la yidhi qof ka soo qaadan kara dhul hadduu yahayna qof ka kacsan kara guri hadduu yahay qofkan ka raran kara waad ka gadi kartaa adigu haddii aadan awood u lahayn waxaa ka mid ah qofku inuu gado wax uusan haynin ama macduum shay macduuma inuu gado ama baycul mucaawama nabigu sala allah alay wasallam waa reebay beerta in la gado acwaaman cadiida sanado badan waxaa ka soo go'i doona in la gado ma bannaana ama sanad waxaa ka soo go'i doono iyada oo aan inta kiilo la sheegin macnaha waxa soo go'i doona in la gado waa bannaanta laakiin maxaa shardi ah kaylun macluum wa ajalun macluum inay inta kiilo aad gadaysana aad sheegto lagu heshiiyo waqtiga aad qofkan ku wareejinaysana lagu heshiiyo ayaa la rabaa oo la xadido macnaha la xadido ayaa la rabaa عين الغائبة أما عين قفك كم مقن أو أوسن أرق لما قد كرو اللهم صفة ما يسترا إن قفك لغسي مؤجي وحيابها صور كغرر كسوق لي وحكم ذا مالها غرر كآد وأجل هذا وحكم ذا سنة هراء تلماني عيمسك أو جنعسك عيمسك جنعسك أو كل شيء أما قفها النقطة ضدك متكل الجليو أما حولها متكل الجليها النقطة يا بابورتي وحلا متكا سند والبلعج انتاس هاد بحين يسا محن كو سمينيا قالوا هدو كهلا بنا والغو سمينيا بلو البنا انتاس على قاضية
waxaa laga yaabaa marka gaarigii inuusa kaaba hallaabin waxaa laga yaabaa wax ka badan in lagu geliyo soo maha dhinacaas qarar bay ka gelaysaa dhinac kalena riba inay noqotaa laga yaabaayo qardi ay gasho li'annahu qofkan wuxuu kaa qaadaya qardi xukunkiisuu yeelanayaa hadhowna wax ka badan ayuu ku siinayaa haddii gaarigii wax ka badan u geliyo marka sidaa daraaddeed qararna way gelaysaa ribana way gelaysaa mana bannaana kullu qardin jarra nafcan waxaan ku jirin ayadu oo bannaan ayuutada ayadu waa bannaanta ayuutadu macnaha 10 qof inay heshiiso boqol isku darsato sanad bil walba qof la siiyo ayadu sharci ahaan waa bannaan tahay li'annahu qardiga maxaa nidhi waa in labada qof wax bixinaysa mid ay gooni ku yahay faa'iidada ama manfacatu qardiga waa inay qof u laabanayso laakiin aduu bishaanad xoolihii qaadanaysa hebelna bishaanu qaadanaya hebelna bishaanu qaadanaya ama heblaayana qaadanaysa ayadu way bannaan tahay waa un dayn wareegaysa oo sanadba qof la siinaayo si culayska loo qaybsado meelaha qararku gala aadna noogu badan waxaa ka mida qofku inuu gado wax uusan milkin wax uusan lahayn waa inuu gado taa waa qodob waayo waxaa kaloo qarar ah oo aan bannaanayn qofku inuu gado wax uusan qabdin wax aan gacantiisa soo gelin qofku markuu ganacsi gelayo ama shay milkinayo labo tilaabo ayaa la qaadaa tilaabada koowaad qodobkan aad u dhagaysta su'aalo bangiyada ka yimaada aad halkaani u soo gelayaan kan koowaad waa in caqdi uu dhaco oon ku idhaahdo shaygaanaan kaa gatay lacagtaasa waan kaaga gaday caqdigu haddii uu dhaco maxaa la socda caqdiga milki iyo lahaanshaa la socda shaygii aan kaa gatay aniga ayaa milkinaya oo yeelanaya marka waxay yidhahdaan almilku yahbutu bilcaqdi milkigu wuxuu ku xasilaa caqdiga taa waa qodobka koowaad waa kadib shaygii aan milkiyey ma sii gadi karaa ma ku tasarufi karaa taas waxay u baahan tahay tilaabo labaadoo la yidhahdo alqabdu inaad la soo wareegto inaad adigu la soo wareegto oo uu galo damaankaaga maxaa laga wadaa shaygan haddii uu jajabo ya ama uu burburo ama uu hallaabo yuu ka burburo tusaale ahaan dukaa timid shaygaasaan kaa gataa tiri meesha saaran موبايل بوها فينوس بوها أي حاجة تلفزيون بوها فرنجر بوها وان كاجري بكيري لعكتي باسيسي أما لعكتي ما هذا الصين الدين بهيد سيدون تعنقط شيء معين كأو موضوعها قف شقين يا يمد ألعاب كلا سقوا سوق هذا نية أي شيء قاعد قدرت لك كل عواجد جب شيء قاسيو كجبا wuxuu ka jabay milkiilihii iska lahaa sababtoo kuguma wareed calaa damaanihi yani calaa mas-uuliyatihi asaga mas-uuliyaddiisii asagaa marka waxaa laga beecii sidaasuu ku fasakhmaya hadduu mucayan ahaa hadduu tilmaan wax lagu kala gatay oo waxaan kaa gadanayaa shay sidaa iyo sidaa iyo sidaa u eg baa tiri lacagtiina waa siisa asagu shay buu kula rabay wuu jajaba mid kaloo beddelkiisa waa inuu ku siiyo cala sifa haddii uu ahaa hadduu mucayan ahaana beeci sidaasuu ku fasakhmaya lacagtaadiina waa inuu kuu soo celiyo sababta wuxuu kaa gadan lahaa waa burbureen uu kugu wareejiyey miiskaa saaratay hadal iyo sheeke iyo arrimo kalaa gasheen qof baa yimid macmiilahoo socdo tii horeba qof macmiila wuu noqon karaa qofkan u shaqeeya ha noqdo macmiil ha noqdo qadar ilaahay ha noqoto si unbaa miisku u dhaqaaqay dhulkuu ku dhacay faynuustii waa kala jabtay ama tvgii ama firinjeerkii yuu ka jabay markaan qofkii la siiyey oo gacanta loo geliyey buu ka jaba qofkii milkiilaha ahaa waxaa isugu laabanaysaan ma leh liannahu adigaa qabdiyey damaankaaga iyo mas-uuliyaddaada ayuu galay waxyaabaha ribxiga lagu helana damaankaas ayaa ka mid a labadaa shay qofku shayga isagoo aan milkinna ma gadi karo damaankiisa isagoon gelinna ma gadi karo soo warcad maaha axaadiid badan baa arrintaa ku soo aroortay
حكيم بن حزام رضي الله عنه النبي يمد صلى الله عليه وسلم وحير قف باي إيمانيا مركز بديعي ويدينيا أنا هينن والديار بان له وإنتاس والديار السجن مركو ماذا أنت السوق هذا صاقده يعني قفك يدبك قضية ما إيه بنانتهي يا رسول الله سؤال شو فهمت إنسان أنا أقول ما هي لكن ميل بنكو أجا النبي يقول ما لا تبع ما ليس عندك وح آدن هنن هجدن علماء ذو حكوا فسران وح آدن ملكين هجدن كاسوا ملك جوا ما بنانا ومركو الشيء وحيد هذا علماء ومعين يهي أو وصف أن وحلقوا كلا جدنين فاهم بدن بكودر تهلك سيد السلام كأو كلا تسأل عن الدنيا هذا وحان أباهنا هاي كمبيوتر تلمامة حاصلة كمبيوتر تلمامة حاصلة أنا كاجدي أو كو كينياتي مركا أظن هيني وأوصل قدي كرتا دلك أو قدل بكرتا دي بدأ أو قدل كرتا وبيع أو وصف يتلمان تكون عوايا كاس من نوع متك عين تكون عا مركا قفك هدو عين كاربو واحد هيسينو كاجة توربو شيء معين إنه كاجة توربو واحد هين كما قدي كرتا ابن عباس رضي الله عنه وحول إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه نبي قوار ريبي قفك الشيء إنه قته إلا أوبيكته إلا أوبيكته محال قوضا إلا أولا وريقه وأحسب كل شيء مثله بير وحو البنا وحان أم لينيا إنه عنتذا لمدي هي عنت آدم بيغن مدقر ذكرتين حديث كان ابن عمر أيه كسي عدانا يساوح لأنه السوق الجوغة أيان سليد قت سليد دي مركان قتي إسلام ماشي أيضا تعالى أيان إيه يمدو وحيري سليد داني قد فائدة في عنا وإيسار دكان له هنا كلمة وريقين وليه ما قاعدا ماشي بيتالي لكوان قت وحان قتي بيري إنان كقضه مركان دبعين أن كجذبا وحير الجذال لا يقتابت قف باي تابتي زيد بن ثابت رضي الله عنه وأها وحيره حكو جدين ما شاءت كجذتي حتى تحوزه إلى رحلك إلا الجريجا أقادت أما إلا الدكان كذا أقادت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم نبي صلى الله عليه وسلم والربي ganacsatadu inay gadaan wixii maxaan ku dhahay badeecadii inay gadaan ilaa ay guryahooda u qaataan goobtooda ganacsiga u qaataan meeshay ku gadayaan oo ay joogaan u qaataan halkaas qarar baa ku jira xadiid kale ibn cumarna wuxuu leeyahay waxaan soo gaaray iyadoo la garaaco qofka ganacsatada meesha wax ku gatay haddii uu garaacayo ilaa uu la wareego oo uu raro حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع واحد وعن بيع ما ليس عندك وعن بيع ما لم يضمن النبي صلى الله عليه وسلم انتاس ايور ريبي الشرطان في بيع هذا موضوع ان ماهن سلف يبيعنا قدال باغت دونا دين اما قرضي يا ما الله يسكو داري كرا بيع لكن النبي يقول كلا ريبي بيع ما ليس عندك وح آدن هينين إنها جديد والملك جاء هين وحو كلا ريبي وعن ربح ما لم يضمن وح عن ضمان كاجا جلين إنها جديد خلاصة أنت أنا حديث بحانو آخرني وحوايه ملك وح آدن لهين مجدي كرت تاس هري لجودة فهمها لجيابا وح عن ضمان كاجا جديد مجدي كرت gelin ma gedi kartid badeecadana kobtaad ku gadatay qofka kale dukaankiisii kuma dhex gedi kartid ayadoo aadan meeshaadii u raran dhibka ugu yaraan fahmi karna waa maxay qofkii markuu yimaado inuu ku yidhaahdo iga leexo dukaankaygu qofkaan joogaana badeecada ka gadaya soo sidaas maaha halkaa qarar baa ku khilaaf tanaasuc baa ka imaan kara qarar baa ku jira qofkii inaad ku wareejin kartaba ma ogid marka qofku shayga uu gadayo waxaa la rabaa kow inuu asaga milkigiisa yahay labana damaankiisa inuu yahay xadiidkana labadiiba tilmaamayaba
wax aan damaankaaga ahayn lagama faa'idi karo sidaa darteed waxyaabaha beeca ku dhaca mar badan muraabaxada asal ahaan way bannaan tahay laakiin khaladaadka dhaca waxaa ka mid ah beeci inuu suuri noqdo suuri maxaa laga wadaa suuri waa midkaan nidhaahna igu sawira oo kale macnaha waa wax muuqaal ahaan keliya loo dhisahayo laakiin hoos aan waxba jirin aan hoos beec jirin macnaha waa dayn aad bixinayso oo lacagna saaranayso sidee ku imaanaysaa waxay ku imaanaysaa bangigu inuu kaa gado wax uusan milkin ama inuu kaa gado wax uusan qabdin oo aan loo tamyiizin oo aan loo soocin ayay noqon kartaa taa marka waxay kala saaraysaa bangigu ma dayn bixiya ma dayn buu ku siinayaa adigu waxa aad rabto iyo tawaruq ina adigu lacag kaliya rabto aadan badeecadaba rabin waa mas'alo kale gadaal aan ka hadli doonaa insha Allah xiyalka markaan gaalan ka hadli doonaa ayada qararka ayadu ma soo galayso waxay soo galaysaa ribada ayay meel ka soo galaysaa bangigu ma dayn bixiyaayo dayn buu ku siinayaa dayntiibuna lacag saaranaya mise waa ganacsadoo badeecu inta gato ayuu kaa gadayaa muraabaxadu waxay bannaan tahay beec waaye nooc beeca ka mida waaye bangigu markuu shay gato lacag ku saartoo kaa faa'iido kadibna maxaan ku idhaahdaa uu adiga kaa sii gado dadka su-aalahoodu waxay u badan yihiin wuxuu ileeyahay shaygii 2000 ahaa 2500 baa lagaa siinaa labadan bangi midna 300 buu isaaraa midna 200 kee xalaala kee xaaraam ah intaas waxba xalaasha iyo xaaraamta tirada lacagtu aad u saameyn mayso ee tirada lacagta waxaa saameynaya labada bangi midna waxbuu inta gato oo la wareego ayuu kaa gadayaa hadduu kun ku saaro way u bannaanta midna waxba kaa gadan uu mahaye wuxuu ku leeyahay dukaan hebel miyaad ka soo qiimaysata haa haye keen meel buu ku geynayaa damaanad buu kaa qorayaa aniga lacag intaasa ii tuuro carbuuna maxaan ku idhaahdaa damiinkaagii keen lacag intaasana hormari alaabtaadiina raro bangigii wax uu milkiyey miyaa jira waa maya soo ma wax uu damaanay miyaa jira labadii shayba xaaraan bay ku noqonaysaa waxaa jira lacagta hormariska oo bangiyadu qaadaan laba nooc waaye oo kala duwan mid walbana xukun buu leeyahay qof bangigu intuusan wax kaa qaadin carbuun inuu kaa qaado ma bannaana xaaraan bay noqonaysaa laakiin sababta wax uusan milkin waaye waxaa bannaan inuu kaa qaado damaanad inaad shaygan gadan doonto ah damaanadaasu hadhow lacagtii beeca kama mid ahan haddii aad ka laabatid intuu adi dartaa shaygii u soo gato oo uu la soo wareego ayaa bangigii xaq wuxuu u yeelanayaa in uu lacagtaas wixii uu khasaaray ka goosto tusaale ahaan 10,000 buu ku soo gaday 12 inuu adiga kaa siiyuu rabay hadhowna 10kii buu ku waayo 9,000 baa laga siistay lacagtii damaanadda ahayd 1,000 waa ka qaadan karaa laakiin carbuun maahan labadaana yaan la isku khaldin insha allahu tacaala haddii marka waxyaabaha wax badan bangiyada muslimka iyo bangiyada ribowga iyo bangiyada aan ribowga ahayn waa isku mid dad badan inay yiraahdaan waxa keenaya wixii baa isku ekaaday macna bangiyadii qaarkood ayaan xalaashi iyo xaaraantii ilaalinaynin khulaasadu marka waxa way bangigu waxa laga rabaa shayga inuu gato la wareego milkigiisa uu galo uu qabdiyo xaqiiqa ahaan uu la wareego ama xukmi ahaan uu la wareego kadibna adiga uu kaa gado wuxuu kala soo gali karaa qararku qamaarka ayuu soo gali karaa qamaarkuna waa shayga wareegaya bayna alghunmi waalghurmi macnaha waxa waaye baktiya nasiibka iyo noocyadiisa kala duwan waaye qamaarka noocyadiisa hadda faafay waaye asaguna nooc qararka ka mida weeye mana bannaana mararka qaar dadku waxay isku khaldaan qamaarka iyo mukhaadarada waxa waaye shay laga yaabo beeciisu inuu dhaco qofku inuu gato tusaale ahaan xaalad dagaal baa lagu jiraa cudurraa jira xaafad heblaa magaalada u sikanaysaa xaafad bay ka sikanaysaa xaafadday ka sikanaysay dhulkeedii baa raqiisay hoos buu u socdaa qof ganacsadaha walaalka ama saaxiibka ay yimid wuxuu yidhi middaan dhacday baan gadanayaa anugu niyo hoos bay u socotaaye khatar ha ku gelinoo khatar galkaasu xaaraan badeecada ka dhigi maayo marka
معناها عقد الشروط دي سي كلا دو أفسده شيء كان هوس ببيعيس والسعودة بري وحلقة يا بجنع صدها إنه كأجي أسرع جدالك كإدمنا ومثلا الباب كيسة أي ساحر مدمنا مرك أصل كلا بعد وحوها معاملة والباء وغرر وكجرو وحرام واي غرر كاسدو كثير هي شروط دي سنة وأفسده بيعينا باطل بنقنيا فاسد بنقنيا وانا لفسخيا لكن waxa banaan qararku hadii uu yariyo yasiir u yahay halka maxaa ku kala duwan baan niri ribada iyo qararka ribada senti hadii ay tahay ma banaana macna hal milyan oo dollar baan ku deyminaya hal senti oo riba ay raaci hadaa tiraado lacnadii baa ku dhacaysa wax yasiir ayad male asalka saddexaad waa dhulmi ama darar waxa ku yimaada شريعة الإسلام كعدل بيكون سنتهي الله سبحانه وتعالى دين تأسود ديي أنبياء أسود دينا وحو أصدري عدالة إن الحقيقية لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان مركا آن كتبت وحلو أسود ديي ليقوم الناس بالقسط عدالة إن لها مركا معاملة والباء ظلم وحاران مركا لا ضرر ولا ضرار ضدك مسلم كأن إسلامنا وحاران وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما بالله سبحانه وتعالى حديث القدس النبي صلى الله عليه وسلم له كورينا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا هايستول مننا ظلم وحاران معاملة والبمرك الظلم يضر وكجر حاران بين قنيسان ظلمك النوعي دي سكو waxaa kamid qishka iyo khiyaanada iyo badeecada in ceebteeda la qariyo nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu soo galay cunto la gadahayo ayuu u yimid cunto meel tuban oo la gadayo u yimid gacantuu galiyay gacantii gudihii waxay u tagtay qoyaan gacantii qoyan baa soo baxday subhanu sallallahu alayhi wasallam ya saaxib at-ta'am ma hada ya saaxib at-ta'am وحوا محيبي أصابته السماء يا رسول الله رب باهلي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم مقعي سمرك على شيء وإن لبص لي هديك لبخل النوع وحن أيان نقنينا معنا أن رب باهلي رب كمرك هدوه له هالكي قيلها أغلب من كينية كرمي قيلها مسهاص يا أصابت السماء هذا حرك كرب كيما هذا الرب به الرب وكذا مرك النبي صلى الله عليه وسلم وحيري أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ما شقين ما كبرس سدتك وأركه من غش فليس مني قفك إن خيانة نجمد معها مركا وإن هدي عيب أي بدأ عدو الله هذا بنانك كان هلا أرك قفك أسرع ربها كوجته ميزانك أو قفك له خيانة أيها كمذا ويل للمطففين الذين إذا اختالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون مرك آيات سؤال كسا أنت وعيد أو قصة أردت ويل يهلاك يعذاب أصغناتي كو ضدك ميزانك كالنسقامية أيها مركي بيغانا يانا بوحسده مركي ضدك بيغانا الشحادة كواسو نار بأصغنات الله سبحانه وتعالى تدليسك أيها كبدا تدليسك وامحي وقفك إنو السمايو فعل والبا أو بداعدي وحكا لك هي حقيقة دي قفك كقرينة هي أنك محال السمايا جوان بيكتب من جوان كلا للقلينية ودن بالغوسو السمايا ودن كلا للقرية داوين كواركتين ماركرة لما بدلي كرا كرتونك لما بدلي كرا تاريخ ذي عيسى لما بدلي كرا كل جو تدليس واي حدي لكن بدأ عدو أي نقطة متدعري أو إكسبايرة وحاب لقيا محرم بذاته إنه يقشو أو ضرر محضي أي نقطة أو قفقه لمن يبه هدي عنه أو أيسن إن عكس بقى بالسوق قلين أرنتا سيدا حرام واي هل لقوا برير بسنة إن شاء الله تعالى بدأ عدي مسلم كإلا قده حرام واي تقريرك أي أسقون حرانا قفك إن هذا الشيء حق خلدان سوى حكاجة قطه صالحا الشركات بالقضية أسهم تدي أما الشيرر كدي إن كرء كعدي أنتي لهيد بينته الشيسة أي اللي أدو حوجا قد أن حوجا بن قدنيا شركات دي هاس بيوسعتها
si aan dadku nooga kala cararin markaas waxa la leeyahay sheerkii wuxuu marayaa intaas dhowr qof oo milkiilo ah oo la diyaariyey oo sidii maxaan ku yidhahdaa najashkii oo kale ahna waxa weeye sheerarka koowaad bay gadanayaan ummaddii baa soo didayso wada gadanaysa marka hadhow wax kam ka dhahaba ma leh dulaalayduna dhulalka ayay ku sameeyaa soo ma dhulkan meequu maraaya bismillah kan 10 kun baa lagu diiday kana 12 kana 18 7 kun baad ku haysataa waa farda kula carar gada uu ku yiri 7 baad ku gadatay bari wariyaa 2 kun iga siista baahi baa u qabaay ma leh af Soomaali baa laga gaday حرام وهي تقرير أي اللي هذا بيع الرجل على بيع أخيه أي ظلمك كمدة ظلمك وحا كمدة قف ولا لك وحي وقتي انتو كلا من لها إنا أدو كد القرطو أو كيسي فلستو أما أدكو فلستو قرقرتن كي أدكو فلستو أيضنا ما بنانا وحام بنانين أيضنا احتكارك هي بدأ عدا إن لك كيديو أو دادك لك قريو حلقي أي أباهنايين baahidoodu markay ay timaadana banaanka loo soo saaro si sicirkeedii kor loogu qaado nabiguna sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri la yahtakiru illa khati ihtikar waxa sameeya oo xoolaha qarsada ma sameeyo qof aan dambiila ahayn ama qof aan zaalim ahayn bi nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiidkaasna muslim baa wariyay tasciirka ayaa halkan soo galaya badeecada in beec loo gooyo iyadoo aan xaajo iyo baahi aysan keenin dawladdu inay tiraahdo shayga inta ka badan lama gadi karo ana wada tasciir inta badan ma aragno biyuuc darar ama biyuucda oo maxaan ku yiraahdaa bisabab darar loo xarimay xukunkoodu horta koow in la galo waa xaraan laakiin qofku haddii uu galo qaar badan baan ka booday si aan waqtiga u ilaaliyo almusarraat oo kala ka mid ah neefka la gaaxiyay oo kale أصل أو قاعدة بيع الضرر نيف كالجاحية ومحي نيف إرمان بعد قد يسي دور بري بعد اللسن سعاني وأروران قف كي قدنا يروح ماذا قف كانوا نيف كانوا ما شاء الله وياه بري مركو قطعانا بمله خيار بوليه هي إنه سوء عليا ما دام أدعيب وقرصي معناه هذا مركو محي خيار بسوء ليه هي قف كان الله بوليه هي كو إنه إسكاه استوى بنانته maxaa kale u bannaan inuu soo celiyo asagoo haysta inuu ku yiraahdo magdhow isma bannaan tahay waa mas'alo kale oo culimadu ay ka doodaan laakiin hadda asalka haddaan u socono waxa weeye biyuucdan min ajli darar sharcigu uu u reebay beecoodii waa dhacaya arkaantii iyo shuruudii haddii ay oofsadaan beecoodu wuu dhacaya waxaa laga wadaa qofkii qaatay inuu haystaa u bannaan laakiin waxaa dembi gelaya qofkii oo dhibka geystay marka jaranjarada waa fahmaysaan kor bay ka timid ribada waxaan niri yaraan iyo badnaan midna kuma bannaana beeciina waa faasid waa baatil soo maaha qararkana maxaan niri iyo jahaalada hadday yasiir tahay waa la dhaafayaa laakiin beecii baa baatil ah dararkana beecii baaba dhacaya oo qofku xoolihii waa milkinayaa laakiin waxaa u bannaan inuu fasakho tusaale ahaan sheekadii hadda aan sheegaynay oo kale dhulkii sidaasaa lagu geliyey haddii uu sidaa ku geliyey qofkii milkiilaha ahaa waxaa u bannaan inuu galo saddexdii asal sidaa ayay ahaayeen waqtigu waa iga sii gebageba waxaan ku khatimayaa marka laba asal oo labadii hore tabac u ah asalka koowaad waa wasaa'isha alaxkaamu lahaa alwasaa'ilu lahaa axkaamu almaqaasid wasiilo xaaraana ma bannaana qofka in وقليه قفك أما كالمية الله سبحانه وتعالى وحيل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب إلهي سبحانه وتعالى وحنا أمري إن وناج إيا خيرك إيا السمفلك اسكو كاشنه وحنا نقرر حمانتا إيا الدنبك إيا حد قدبك إنا اسكو كاشنه الله وحنا أمري إنا أساك عبسنه وحنا نحسوسي أرنتاس حمان هدي الله اسكو كاشيدا عربت أي ليدها إن الله شديد العقاب سيدا درادت كل معاملة تكون وسيلة إلى محرم فهي حرام وسيلة والباء أو حاران كوهر كعيسى حرام وحكم ذا وسيلة الربا وحول الباء الربا درتيد لا حرمي معناه وسيلة ذا
qaar badan oo ka mid ah wasaa'ishan sharciga ama kutubta ayay ku soo arooreen laakiin sababka loo xarimay ayaa wasiilo ah macna culimmada qaar ribal buyuuc dii xala aan ka hadlaynay qaybtii hore oo beeca waxay yidhaahdaan sababka loo xarimay waxay wasiilo u tahay riba duyuun ribadii deynta ayay qofka gelinaysaa ayay yidhaahdaan haddii loo banneeyo qofka laba shay oo la isdhaafsanayo inuu kala badiyo haddii hadhowna deyntii inuu ku kala badiyo ayay u jiidaysaa ayay leeyihiin ribal fadli sidaas ay ku noqoto mucaamalaadka culummadu marka ay xaaraannimadeeda ka hadlayaan ay yidhaahdaan wuxuu keenayaa xaaraan buu kuu keenayaa waxaa ka mid ah damaanadda in lacag lagu qaato damaanadda in lacag lagu qaato qofbaa ku yidhi idamiino lacag baad ka qaadatay ma bannaana ibnu lmundir raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay ajmaca kullu man naxfadu canhu min ahli lcilmi dadka ahlulcilmiga ah oo cilmigoodinu soo gaaray oo dhan waxaan ka xifdinay calaa ana alximaalata bijuclin ya'khuduhu alxamiilu laa taxilu walaa tajuus qofka damiinka ah qofka uu damiintay inuu lacag ka qaato inaysan u bannaanayn ayaa culimmadii oo dhan ka haynaa buu yidhi culimmada qaar baa yidhahda taabiciintii qaarkood yaa laga wariyo qiila raadiya laakiin sida madaahibta afarta iyo culimmada islaamka dhan ay qabaan waa inaan damaanadda lacag lagu qaadan karin limaada laba sababo kala duwan baa la sheegaa waxaa ka mid ah damaanadu waa jaahaagii iyo wejigaagii oo aad gadayso wejigaagana lacag lama siisto ayaa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhahdaa qofka aad damiinanaysa baahi buu u qabaa waxyaabaha la isku caawiyay ka mid tahay ku caawi waxyaabihii watacaawanuu cala albiri waataqwa bay ka mid tahay dhinac kale waxay yidhaahdeen liannahu qad ya'uulu ila alribaa inuu riba kuu keenaa laga yaabaa oo see riba kuu keenaya qofka markaad damiinato hadduu dayntii bixin waayo yaa laga rabaa adaa lagaa rabaa sooma waa kaxaysay $1,000 daynaha qaatay hadhow buu bixin waayo $100 khidma ama $50 khidmaana waa ka qaadatay kontonkaagi waa cuntay allah ku barakeeyo hadday xalaal ku ahayd laakiin waa xaaraam sidaan u sheegnay berri dukaanlihii wuxuu ninkii waxba kama hayo adaana damiintay dukaanlihii meequu kaa rabaa $1,000 kunkii baad bixisay adiga dhankaaga meeqaa martay marka saaxiibkaagii aad damiinatayna kun baad ka qaadatay meeqaa marka damaankii macnaha lacagtii aad damiinto kunka ahaydna waa leedahay $50 oo damaanadda aad ku gadatayna waa leedahay meeqaa qaadata marka $1,050 min alqardi alladii yajuru nafcan wayay leeyihin waa dayn lacag la saartay sidaa darteed halkaa markay marayso waxaad ogaanaysaan bangiyadu damaanadda ay gadaan ama bangi garantigu waa suxti waa xaaraan mana bannaana waa inay arrintaa ku baraarugaan haddana dadku xalaal bayba u qabaanba sida biyaha oo kale u kala gataan waxyaabaha wasiilooyinka waxaa ka mid ah jimcada adinka labaad ee jimcada dadkii jimcadu ku waajibtay wax lagama gadi karo waxyaabaha xaaraamta waxaa ka mid ah gaalada lagama gadi karo waxyaabaha ay muslimka inay u quwoobaan oo awoodda gaalada kor u qaadaya gaalada xarbiyiinta ma bannaana waxaan bannaanayn dhulka gurigaaga ama dukaankaaga inaad ka kiraysato dad xaaraam uga ganacsanaya qaadwale dukaan lagama kirayn karo waxaan bannaanayn hoolalka in laga kireeyo dad xaflado ilaahay subxaanahu wa tacaala wax uusan bannayn ku samaynaya hoolka lagama kirayn karo maxaan ilaahay bannayn muxuusan bannayn qof walba naga mida wuu fahmayaa wuu yaqaanaa waxaan bannaanayn hoteellada in laga kireeyo laba nin iyo naag isla socdo rag iyo dumar isla socdo qolkan saacad naga kireeya 2 saac xaaraam weeye suxti weeye reeraha isqabaa meelay degan yihiin oo lagu yaqaanaa dadka inta badan hoteellada taga waa dadaan isqabin ama aan xalaal iskula joogin allaahumma ilaa maa nadar waxyaaba naadir ah waa dhici kartaa marmar ah naadirkana hadda axkaamta laguma dhiso marar badan way dhici kartaa inay dad isqaba u baahdaan laakiin inta badan waa dadaan isqabin waayo kulli marka waxay ka mid yihiin intaasoo dhan التعاون على الإثم والعدوان من بنانا أصل كالشناد والحيل حيل كوحلقة وذا وسيلة قفك ومرية واجب الردو
waajib uu isaga rido ama xaaraan uu u xalaashado waxaa waaye xiiladii waxaa tusaale noogu filan yahuudda dhaqankooda waaye yahuudda markii la yidhi maalinka sabtigaa ma kalluumaysan kartaan xaaraan buu idinka yahay inta kale kalluumaysta maxay sameeyeen shabaqii bay sabtiga sii dhigteen kalluunkii ku aruurayna axadday soo jiiteen soo ma walaqad calimtum aladiina اctadow minkum fi الsabti faqulnaa lahum kunuu qiradatan khaasi'iin daanyeeraa ilaahay subxaana wa tacala u bedelay daliiliina oo xaqiiriin ah sidoo kale allah subxaanaه wa tacaala wuxuu ka xarimay ashuxuum xayrtii baa laga xarimay baruur ma cuni kartaan baa layidhi baruurtoo noloba diidan ha faadaabuuhu waxaa waye way dhalaaliyeen way shiileen intay shiileen bay gadeen lacagtii bay cuneen yahuuddaa xeeladuhu ka yimaadeen xiyalku marka ma bannaana xeelo walba oo xaaraan lagu gaarana xaaraan waaye niyadana inama alacmaalu biاnniyaat iyo nebigu sala اllah alay wasalam wainama likulli imri'in maa nawaa imaam ibnu qayim markii hal saac baan kusoo xiraya insha allah imaam ibnu qayim markii uu ka hadlayay xiyalka wuxuu yidhi khadaac bay culammadu ku tilmaameen khidaac oo maxaan ku yidhahdaa yukhaadicuuna allaha kuwa alla subxaanahu wa tacaala uu yidhi oo kale way yidhi dadka samaynaya khidaaca iyo xiyalka annaga noogu badan waxay ka yimaadaan qardiga iyo daynta iyo beeca la isdhex gelinayo beecu horta ama qardiga aan idhaahda alqardu alxasan markii la yidhahdo qardiga waxba lama saaran karo kullu qardin jara nafcan fa huwa riban qardi wax la saartay haddaad aragtid waxa waaye waa ribaa soo gashay alqardu alxasanna aad baa loogu xadgudbay qof baa ku weydiinaya su-aal wuxuu leeyahay haye bangi ama shirkad ama mu'asasaan waxaan galnay qardi xasana kow bangiguna intaasuu helayaa aniguna intaasaan helayaa meeshaas qardi xasana ma ku jiraa xasanba wuu ka baxay qofka bixinaya hadduu wax ka helaya albaabkii xasankaba ka baxa albaabkii xasankaba waa ka baxay marka horta qardi dheh culamada qaar baa ilaahay alqardu alkhashin khashin waxa adag sida dhagaxa oo kale quruudii waxaa loo bedelay in wax sida dhagaxii oo kale wixii caadiga loo kala gadanayayba kana dhib badan kana adag kana caqabaad badan waxayna ahayd in ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaado oo qofku qof haddii uu 2 jeer qardi siiyo waxay la mid tahay asagoo mar sadaqa la baxay oo kale meelaha uu soo gala marka waxaa ka mid a bayculciina bayculciina waa maxay tusaalihiisa bayculciina waxa weeye qofka inaad shay dayn uga gadatid dayn inaad uga gadatid tusaale ahaan kombiyuutaraad ka gadatay 10 kombiyuutar min $500 2 sanaadna ku heshiiseen saasaad kula wareegtay isla kombiyuutaradii inaad dib uga gadid lacagtii lacag ka yarna aad ka siisid asagoo weli dayntii kugu leh waqtigeediina aan la gaarin 5,000 soo ma ahayn 4,800 inaad ka siisid ama 4,600 kombiyuutaradiina ninkii qofkii iska lahaa uu la wareego bacda daalika adigoo 400 lagugu leeyahay iyo abtiyoo kombiyuutaradii haystana aad kala tagtaan qofkan marka muxuu faa'iiday kombiyuutaradiisina waa haystaa macnaa adigu waxaa faa'iidaysaa tawaruq iyo kaash qofkaana muxuu faa'iiday adigu caddaankaa faa'iidaysaa inaad lacag heshay kaash aad faa'iidaysaa asaguna muxuu faa'iidayaa $400 iyo kombiyuutaradiiyo dukaanka u dhex yaalla xaaraam weeye nebigu sala allah alay wasalam idaa tabaayactum bilciina wa akhadtum adnaaba albaqari wa radiitum bizarci wa taraktum aljihaad nebigu sala allah alay wasalam wuxuu leeyahay haddaa dadku aad ciinada wax ku kala gadataan oo xiyalu ribowiyo dhan halkaanay soo gelayaan bay culammadu dhahaan ribadii haddaad bannaysataan iyo xiyalkeedii xoolihiinna iyo beerihiinna raacataan jihaadkii aad ka tagtaan ilaahay subxaanahu wa tacaala dulli iyo liidnaan iyo in laydin xukumo in laydinku amar ku taagleeyo in cadowgiinnu idinka adkaado ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala idinku salladayaa la idinkamana qaadayo ilaa aad diinkiinnii u laabataan ilaa aad jihaadkii u laabataan ilaa aad xalaashii u laabataan ilaa aad sharcigii u laabataan culummadu aad bay uga digeen anas ibnu maalik radia allahu canhu baa la weydiiyo la yidhi ciinada ka war
qofka 2,000 5,000 oo dayna inaa uga qaato markaan la wareegana isla asagii 4,600 oo kaash ka siiyoon lacagta aan u qaato muxuu ku jawaabay inna allaha laa yukhdac ilaahay lama siri karo qofna ilaahay ma siri karo yidhi ribadii luuqluuq in loo soo maro way ka xun tahay culammadu yidhaahdaan in toos loo qaato oo kale waxaa jira wax la yidhaahdo tawaruqa waxa waaye qofku inuusan badeeco rabine uu kaash rabo tawaruqu mararka qaar waa ciinadii oo kale xaaraan buu noqonayaa si kooban marka loo yidhaahdo oo badeecada qofkii aad ka gadatay laftiisii inaad ka gaddo lacagtii aad uga gadday lacag ka yarna aad xaaraan sheegay soo ma isla ciinay noqonaysa tan labaadi waxa waaye badeecadii markaa qaadatid adigu inaad lacag markaa lacag rabtid kombiyuutarradii inaad qaadid dukaamo kale aad geysid meelo kale aad geysid aad tidhaahdahay beecooda jumladu intaanu joogaa 500 aad khasaarto dad kalena aad ka gadid 4,500 lacagana aad hesho kaash middaasay culammadu isu khilaafeen badeecadaan lacag adoo raba ma la garan kara culammadu qaar waa xaaraan bay leeyihiin imaam maxamed taymiya iyo ardaygiisu ibnu qayim sidaasay rajaxayaan ribadii baa hadhow lagula laaban doonaa bay leeyihiin oo qofku hadduu maanta bannaanka ku gado berrina gurigii buu kula laabanayaa marka saddan lidaraa'ic haddaba albaabkan ha la xiro culammadu qaar waa karaahiyo waa laga fiican yahay laynagoo eegaya saddu daraa'icaas culammada qaarna way bannaan tahay leeyihiin waana sida ay culammadu u badan yihiin majaamicda fiqhiga iyo culammada mucaasiriintuna hadda ay fatwoodaan oo ah haddaad inta qaadato kombiyuutarradii ama noocay doonto badeecadu ha noqoto cunto ha noqoto dhar ha noqoto boos ha noqoto aad meel kale ka gadato mushkilad ma lahan wayna kuu bannaan tahay laakiin haddii bangi iyo ay meesha soo gelayaan shuruuddeedu way ka badnaanaysaa intaas hay-atulmuxaasaba markii ay ka hadlayeen 10 shardi bay u shardiyeen inay bannaanaato si aad lacag u hesho badeecadaanna aa u qaadid shuruudda waxaa ka mid ah shardigii hore aan uga soo hadalnay oo horta koow bangigu waa inuu shaygii asagu gato uu milkiyo uu lahaado oo adiga kaa gado oo uu qabdiyo qabdiga noocyadiisa kala duwan noocii markaas uu ku ansaxayo hadda faahfaahintiisa ma geli karto shaygii waa in la cayimo waxay kaloo yidhaahdeen muwaadaco iyo heshiis waa inuusan jirinoo qofka badeecada laga qaadahayo iyo qofka daynta looga qaadahayo